Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka daruuraha. Waxaa sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya wadamada Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo ku aadan biyaha webiga Niil kadib markii Itoobiya ay bilowday buuxinta biyo-xireenka ugu weyn qaaradda Afrika, kaas oo ay dhismihiisa waday muddo 9 sannadood ah, soona bilowday sanadkii 2011. Muuqaalo la soo dhigay ayaa muujinaya Itoobiya oo u gudubtay tallaabo ka careysiisay dalalka Masar iyo Suudaan, taas oo ahayd inay bilowday buuxinta biyo-xireenka weyn ee Grand Ethiopian Renaissance Dam, maadaama biyaha webiga Niil ay ka wada faa'iideystaan isla markaana aad ay ugu tiirsan yihiin wadamada Masar iyo Suudaan. Itoobiya waxay ku adkeysanaysaa inaysan jirin cid iyo awood ka hor istaagi karta qorshaheeda biyo-xireenka ay damacsan tahay inay kaga dhaliso tamarta korontada biyaha, midkaas oo noqonaya kan ugu awoodda badan qaaradda Afrika, waana nooca loo yaqaano Hydroelectric Project. Waxaana Itoobiya ay ku doodaysaa inay xaq u leedahay inay ka faa'iideysato biyaha dalkeeda si ay u horumariso nolosha shacabkeeda, kuwaas oo in ka badan kala bar aan haysan wax koronto ah. Inkastoo Itoobiya ay sheegayso inay 5 ilaa 7 sano ku qaadanayso buuxinta biyo-xireenkan, ayaa haddana waxaa Masar iyo Itoobiya ay ka cabsi qabaan in Itoobiya keligeed ay maamuli doonto biyahaasi, oo qiyaas intii ay doonto iyo goortii ay doonto ay soo dayn doonto biyaha webiga Niil, markii ay doontana ay xiran doonto. 10kii sano ee ugu dambeysay waxaa socday wadahadallo 3 geesood ahaa oo ku saabsanaa biyaha Niilka buluugga ah oo ay wadaagaan dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan. Hase yeeshee dhammaan kulamadaasi u dhexeeyay 3daasi waddan ee dariska ah ayaa guuldarro ku wada dhammaaday. Waxaa kaloo jirtay in Maraykanku uu mar isku dayay inuu dhexdhexaadiyo wadahadallada biyaha Niil, hase yeeshee Itoobiya ayaa ku gacan saartay qorshihii Washington, sheegtayna inaysan jirin cid ay u daba fariisanayso arrinta biyo-xireenka Itoobiya, quwad ay ka cabsanaysana aysan jirin. Biyaha Niil waxay ka yimaadaan buuraha harada Tana ee Itoobiya, waxaana ay u qulqulaan dhanka waqooyi oo ay ku shubmaan Suudaan, kadibna waxay u sii gudbaan Masar inta uusan Niilku ku darin badda Mediterranean-ka. Haddii si kale loo dhigana, webiga Niil waxaa ku tiirsan ilaa iyo 11 waddan ama 280 milyan oo ruux, kuwaas oo ku kala nool dalalka Itoobiya, Suudaan, Koonfurta Suudaan, Masar, Rwanda, Tanzania, Uganda, Burundi, Democratic Republic of Congo, Eritrea iyo Kenya. Hase yeeshee waxaa si weyn ugu sii tiirsan 3 waddan: Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Wasiirka biyaha, waraabka iyo tamarta Itoobiya, Seleshe Bekele, ayaa warbaahinta u sheegay toddobaadkan in buuxinta biyo-xireenka Itoobiya aan lala sugayn inta si rasmi ah loo dhammaynayo dhismaha biyo-xireenka. Hase yeeshee haatan arrintaasi lasii bilaabi doono, halka xilli roobeedka haatan bilowdayna biyihiisa loo weecin doono dhanka biyo-xireenkan derbiyadiisu ka samaysan yihiin shamiitada adag ee ay ku baxday $5 bilyan. Dowladda Suudaan ayaa iyadana sheegtay in hoos u dhac weyn laga dareemay heerka biyaha webiga Niil marka loo eego sidii uu ahaan jiray waqtigan oo kale sanadkii hore. Waxaana Suudaan ay ku baaqday in Itoobiya ay ilaaliso heshiisyadii hore loo wada gaaray, isla markaana biyaha webiga Niil si cadaalad ah ay u wada qaybsadaan 3da dal ee Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Dhanka kale, mowqifka Maraykanku ka qabo arrinta biyaha Niil ayaa waxay tahay mid dhexdhexaad ah oo si siman ay Masar, Itoobiya iyo Suudaan xal kaga gaarayaan arrintan, si ay uga faa'iideystaan shucuubta dalalkaasi oo aan xilligan xamili karin xiisad culus oo ku aadan webiga Niil. Wadahadalladii ugu dambeeyay ee 3dan dal lagu heshiisiinayay ayaa waxaa dhexdhexaadinayay Midowga Afrika, balse waxa ay ku dhammaadeen is-afgaranwaa. Itoobiya haddii ay ku guulaysato mashruucan koronto ka dhalinta biyo-xireenkan, waxa ay heli doontaa koronto ka badan inta dalkeedu u baahan yahay, taasoo keenaysa inay ka sii iibiso dalalka deriska la'ah. Waxaana midaasi ay sare u qaadaysaa dhaqaalaha Itoobiya, meeshana ka saaraysaa faqriga ay dadkeedu ku nool yihiin, iyadoo haatan Itoobiya la ogyahay inay ka mid tahay dalalka dhaqaalahoodu soo korayo ee laga helayo shaqaalaha muruqmaalka ah ee ugu qiimaha jaban qaaradda Afrika. 90% dadka reer Masar ayaa ku tiirsan biyaha webiga Niil oo ay beeraha ku fashaan, waxaana ay cabsi weyn ka qabaan
in haddii ay biyo yari ama abaari dhacdo ay Itoobiya xiran doonto webiga, taasina ay khasaaro weyn gaarsiin doonto beeraleyda Masar oo haatan baladaala dhacaya biyo yari iyo cimilada adduunka oo isbedeshay. Laakiin Suudaan ayaad moodaa inay xoogaa ka roon tahay Masar marka la eego ku tiirsanaanteeda Niil, sida uu sheegay wasiirka waraabka Suudaan Yaasir Cabbaas oo xusay in Suudaan ay dano badan la wadaagto Itoobiya iyo Masar, sidaana ay tahay dowlad dhexdhexaad ah. Isagoo xusay in inkastoo biyo xireenka Itoobiya uu yareynayo biyihii ay Suudaan ka helayeen webiga Niilka, haddana waxa ay Suudaan mashruucaasi Itoobiya ka heli doontaa koronto ay baahideeda ku daboosho. Waxaa kaloo Suudaan kaga yaraan doona fatahaado fara badan oo kaga imaanayay dhanka biyaha webiga marka uu roob fara badan da'o, taas oo sare u qaadaysay heerka biyaha webiga, kadibna uu webigu ku fatahayay deegaano badan oo waddanka Suudaan ah. Laakiin dhibaatada taagan ayaa waxay tahay in Masar oo nolosheedu ay tahay biyaha Niil ay xadaaradeedu muddo fog ku tiirsanayd ama ku qotantay webiga Niil, waxaana masaaridii qadiimiga ahayd ay aaminsanaayeen in Niil uu yahay hadiyad uu Alle ku manaystay Masar. Waana fikrad ay qarniyaal fog rumaysnaayeen reer Masar ilaa iyo maantana ay aaminsan yihiin, iyadoo madaxweynahooda Cabdul Fattaax al-Siisi uu hadda ka hor sheegay in biyaha webiga Niilka ay yihiin kuwo amarka Ilaahay ku soo burqanayay kumanaan sano oo aysan jirin cid sheegan karta inay iyadu leedahay. النهر ده والمية دي بتيجي بأمر من الله من آلاف السنين. من آلاف السنين المية دي بتيجي بأمر من ربنا، تنزل في أثيوبيا صحيح، لكن تيجي لمصر عشان الناس تعيش فيها وتقوم فيها حضارة. Itoobiya iyadana waxaa webiga Niil uu dhaqankooda uga jiraa xagga sare, waxaana ay ugu yeeraan Abaay, iyadoo ay jiraan heeso iyo filmaan ama gabayo badan oo laga sameeyay Niilka buluuga ah. Haddii aan dib ugu laabanno taariikhda, waxyaabaha adkeeyey wadahadal kasta oo miro dhal noqon lahaa oo laga gaaro qadiyadda webiga Niil ayaa waxaa ka mid ah heshiisyo hore, sida heshiiskii taariikhiga ahaa ee webiga Niil ee 1929 Ingiriiska oo ka talinayay Afrika uu la saxiixday Masar, taasoo uu Masar ku siiyey inay awoodda qayaxan kaga hortagi karto wax kasta oo saameynaya saamigeeda biyaha webiga. 1959 waxaa mar kale oo heshiis dhex maray Masar iyo Suudaan, iyadoo heshiiskanna lagu ansixiyey in Masar ay hesho 55.5 bilyan cubic mitir oo biyaha Niilka ah sanadkii, halka Suudaanna loo oggolaaday inay 18.5 bilyan cubic mitir oo biyaha webiga Niilka ah ay sanad walba hesho. Labadaasi heshiisna laguma soo darin, mana lagala tashan Itoobiya, waana midda keentay in Itoobiya ay haatan ka feejignaato Masar iyo Suudaan. Sanadkii 1970 waxa ay Masar dhammaystirtay dhismaha biyo xireen weyn oo ay samaysatay, taas oo ay kaga gaashaamanaysay fatahaadaha biyaha islamarkaana ku horumarinaysay dhaqaalaheeda. Cadaalad darrooyinkaasi faraha badan ayaa keentay in Itoobiya ay keligeed tashato, wax walbana kaga hormariso inay gaajada kaga saarto dadkeeda gaaraya 110 milyan ee qofood. Sidoo kale Itoobiya waxay ka gaashaamanaysaa inaysan mar kale ku dhicin abaartii 1983 ilaa 1985, taas oo ay kaga dhinteen dad ka badan 1 milyan iyo bar. Khubarada muddada dheer aadka ula socday arrinta webiga Niil ayaa waxay aaminsan yihiin inay dhici karto in Masar haddii ay xal ku keeni weyso dhanka siyaasadda ay isticmaali karto awood militari oo ay ka mid tahay inay duqeyso biyo xireenka Itoobiya dhaqaalaha fara badan kaga baxay, balse taasina waxa ay keeni kartaa cawaaqib xumo kale oo hor leh. Dhammaan Masar, Suudaan iyo Itoobiya ayaa ah dalal dhaqaalahooda la kabo oo ku tiirsan bangiga adduunka, taasoo micnaheedu yahay inaysan keligood qaadi karin tallaabooyin aan lala ogeyn. Gabagabadii, waxaa dhammaan Itoobiya, Masar iyo Suudaan loo soo jeediyey inay sii wadaan wadahadallada xal lagaga gaarayo saami qaybsiga biyaha webiga Niil, islamarkaana ay is-aaminaan, xiisadda dhexdooda ahna qaboojiyaan, maadaama dhammaantood ay u wada baahan yihiin ka faa'iidaysiga biyaha webiga Niil. daruuraha